cutubyadan oo ka tirsan ururka shanaad gorgor ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhameystay tababar uga socday xarunta carbinta ciidamada Turkisom ayaa loo dhaariyay inay si daacadnimo ah u difaacaan dalka oo ay gutaan waajibaadkooda qaran. waxaan si sharaf leh u gudanaynaa tababarka anagoo si farxad weyn leh ku leh sugayna in aan gudanno tababarkeena marxadiisa dalka Turkiga ee commandoska. taliyaha ciidanka lugta Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa sheegay inay yadidiilo iyo rajo iftiimaysa ku abuurayso in ciidamadan ay u diyaar garoobeen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hawlgallada al-shabaab looga xoreynayo deegaanada ay Soomaaliya uga sugan yihiin. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno xafladan quruxda badan ee dhaarinta ururka shanaad ee gorgor ururkaas oo ah urur runtii aad u qiimo badan oo dhammaan gobolada Soomaaliya oo dhan ka kooban aadna inoo farxad gelinayso sida hanaan kale oo ay tababarka u qaadanayaan iyagoo gudanaya waajibaadka loo tababarayo oo ah inay dalka iyo dalkaba ay difaacooda ka qayb qaataan. Generaal Aydamer oo ka mid ah saraakiisha xarunta tababarada Turkisom ayaa ciidamada ka hor yiri 4 bir yanından koşarak geldiniz. Bizlere askartiina ka tirsan ciidamada xoogga dalka markii la idinku yeeray waxaad afarta jiho ee dalka ka timaadeen idinkoo rucleynaya waliba waxaadna tusteen annaga iyo caalamka rabitaankiina difaaca dalkiina waxaadna nala wadaagteen sida aad ugu faraxsan tihiin ka mid noqoshihiina ciidanka iyo xirashada labiska ciidanka xoogga dalka. wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa xusay in ciidamada lagu tababaro Turkisom ay udub dhaxaad u yihiin dibudhiska ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo ku hawlan sidii dalka nabad loogu soo dabaali lahaa. dal waa ciidan dal haduusan ciidan lahayn oon cadowga dibadda iyo gudahaba aan iska difaaci karin waad dareemi kartaa xaaladiisa. waxayna ku soo aadeen waqti aad iyo aad u qiimo badan oo dibudhis ku socdo ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.